iyadoo meel xasaasiya uu marayo dagaalkii ciidamada Soomaaliya ay kaga jireen dhulkii Soomaali galbeed haatanna loo yaqaano gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa taliyayaasha ciidamada ee Soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay khaarajiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga taariikhyahano iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd 83 dhinaca kalese waxaa la isku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow deegaanka Garab Case oo aan ka fogeyn magaalada Jigjiga qaar ka mid ah saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraalada laga sameeyayba waxay muujinayaan in dilkan uu dhacay horaantii bishii Maarso sanadkii 1978 Generaal Maxamed Nuur Galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaalida ee hogaaminaya howlgallada waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii Janaayo laga soo bedelay furinta hore ee dagaalka laguna soo celiyay magaalada Muqdisho laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sida uu dhacday waxaana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto qaar baa ciidamada taliyaha frontigaas ciidamadii ku jiray fronta Jigjiga jinacsanay ilaa iyo dhinacaas Jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray Hargeysa looga diray anagu ma aqaan saxeexay ma sarxaan baa saxeexay taliyaha ma sawantar baa saxeexay oo ah wasiirkii gaashaandhigga ma geel saxeexay oo ah bandooyi ciidamada saddexdu meeshay joogeen telegram saasa loo diray ayaa la diray oo la leeyahay ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maaragtay dishibliinka fiican soo qora waa la dalacsiinayaa taas waa la soo qoray ayagoo awal tirama hore ma ay cayimaan 83 bay noqdeen wixii taliyayaashii ay soo qoreen oo garaado kasta leh yani oo saraakiil xigeen oo saraakiil ku jiray dhinac baa lagala raacay mishiga lagala raacay banaan cad meel ay u cararaan male finish halkaas 83 baa lagu dilay dalacaadi sidaas ay noqotay sababtu maxay ahayd sababta ayaga og laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay fikradaas inay Maxamed Siyaad ka socotay asaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaado midowgii Sovieti waasoo baxtay oo dhan ay meeshii soo qareysatay ayaa la iska dhaadhiciyay ciidankaas oo soo jaba hadduu soo noqdo Maxamed Siyaad inuu iska dhaadhiciyay u malaynaya hadduu soo noqdo meesha waa ku inqilaabaya waa ku eriyayaan meesha laga qaadayo Korneel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu ahaa abaanduulaha taliska madaaficda goobta waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjaxaabin ku socotay ciidanka waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyay oo uu arkayay inay ahaayeen kuwo halis gelinaya nafta askarta Soomaaliyeed iyo istiraatiijiyadii dagaalka waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyay ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegay ciidanka Soomaalida waxa jibiyay ciidankaas qorshe naga qarsoon haddii aniga aan rasaas ku weydiisto oo aad rasaas la'aan dhigtay oo aan raashin ku weydiistay oo aad raashin la'aan dhigtay ciidankii ma adiga taliyaha ahaa jibiyey oo aagan hogaaminay oo waday mise anaa jibiyey adaa jibiyey war madfaca see meesha looga qaadaya baabuurkan see looga wadanaya laakiin sabotage ma garan markaa iyada okay galaal baan ka gartay niyo waaye minjaxaabinta dadka mas'uulka ka ah miyaad ka hadli kartaa minjaxaabinta dadka mas'uulka ka waa dadka naga sareeyay oo na xukumay oo ay ka mid yihiin hadda markaas yaa xukumay anaga cid ka maqneed ma jiro ciraa joogay galaal baa joogay waxa joogay mataqaana samatar laakiin hebel kuma dhahayo hebel aan dhiibi amarkan kuma dhigi karo waxaa laga yaabaa ayaga dhaxdooda inay iska warqabin waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in la isku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkan raali laga ahayn laakiin dhalinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootigan liisoo diraya arrintan lama socdaan gaashaanle sare Daawud Cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta waxaana uu taliye ka ahaa qayb lagu magacaabo Baadham 3 waxa uu xilligii dilkan uu dhacay oo ku sugnaa degmada Galaalshe waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood
waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyey saraakiishii hoosta ka qorshaynaysa inqilaabka gaar ahaanna gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro oo ahaa taliyihii kulmiska jigjiga arrintaas waxaa hogaaminayay oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeedaba lahay ninka ciro la yidhaha laakiin waa lala aqbalay ma garat waxaa jirto mahmaah oo russian ah oo la yidhaaho kacaanka waxaa dila kacaan diid wuxuuna ku dilaa gacanta kacaanka nin haddaan kuu dilciyo ninka wadaniga waxaa dila wadani xume wuxuuna ku dilaa gacanta wadaniga marka taasay aheeday dawladda waa lagu dilay laakiin waxaa lahay dilka ninkaan kuu sheegay kabacdina dilku soo dhacay dilka de wuxuu dhacay waa la iskugu yimid goorbarqa beebeyaal iyo waxbaa lagu wareejiyey waa la rigeeyey kala baxaa la yidhi hal tilaab horay gadaal waa kow laba oo kale kowna waa la dilay labana waa la dhaafay saas waxu dhahay dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay ka soo baxeen waxay sheegaan in markii dilkaas u dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaatay fikradaas ma qabin aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toobasho lagu xukumay oo badbaaday laakiin oo nimankii catiir iyo sufurdhaare iyo magarata dayib iyo oo hargeyso lagu dili jiray ayaan la xukumay oo inqilaabka diiday marka aniga naftaydu dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay aniga iyo wax lamid ahna ka badbaadnay ma garatay marka jawi iska kacsan oo ahay haddaba ciidankaasi la laayay ma waxaa dilkooda amray hoggaankii ugu sarreeyey ee waddanka sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aan ka qaatay sababta loo dilayse ma waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka soomaalida mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgembi milatari oo saraakiisha qaarkood qorshaynayeen mise waxay ahayd shirqool ay ka dambeeyeen midowda soofiyeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada soomaalida dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada soomaaliya balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abbaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan jiiddiisa uu ka dhacay dilku gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka garab case xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijkan waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaasi jenaraal maxamed cali samater sidan hudaan waxay ahayd intaan ka hooseysto ilaahayna hanagu toosiyo khaladana hanaga diyo jigjiga ayaan joognay marka maalinta arrintaas aad weydiisay dhici doonto ciidamo badan baa yani ka soo baxay difaacyadii hore askaro badan baa iska soo hadqanay magaalada jigjiga soo galay markaasna waxaa nala joogay wasiirkii gaashaandhigga iyo tiim la socda maxamed cali samater marka maadaama ciidamadaasu amar la-aan ay difaacyadii ka soo baxeen subaxdii waa la fayliyey waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada etoobiya xarunta u ahaan jiray buurta yar lahayd halkaas ayaa lagu fayliyey garab case markii la fayliyey ciidan door bay noqdeen oo ilaa 2,000 boqolaal beer boqolaalkaas waa khaldi karaa laakiin 2,000 waa hubaa boqolaalka 200 baan filayaa inay qiyaastayda hadda aday ahaayeen dabadeedna amar baa la baxshay siirkii gaashaandhigi go-aan buu qaatay ciidamadana amar la-aan bay soo baxeen difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen marka amar buu baxshay wuxuu yidhi saftay ku jiraan ciidamadii saraakiishoodu qolo walba saraakiishoodu waa hortaagan tahay ku wixii soo baxay marka amar buu baxshay wuxuu yidhi sida koob ha lagu sameeyo 1, 2, 3 ha laga bilaabo lambarka 30aad qof kastoo noqda xagga ha loo saaro soddonkaas kuwa kale inuu dadkii u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dambi gaara oo iyagu lambar 30 gooni u galay ma jirin wixii 30 noqday goonaa loo saaray ciidan adigu 70 qiyaasayda hadda anigu 1, 2 goobtii ma dhihin meeshase waa jira wixii ciidan 70 oo 30kaas lagu soo saaray waa gooni loo saaray dabadeedna ciidamo koofiyad casa iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay amar baa la baxshay ciidamadii koofiyad casa waxaa layii ku fura rasaas baa lagu furay ciidankaas dabadeed waxaa maqlay hal qof baa ka baxay oo buurta dhinaceeda kale ka dhacay marka
amarka toogashada ma maxamed cali samatar buu ku ekaa mise madaxweynahana wuu la socday? hadda wata madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba de xiriirkoon joogtu ahaa kolley waa kala warqaadanayeen laakiin anigu hade madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen aniga sarkaal caadigaan iska ahaayo markay wada hadlaya badanaaba goobsoo kale aanu noqon jirin caadi maana ahayn. xataa waxaa joogay nin golaha saraabaa meesha joogay magaalada markaa joogay oo hadda iyagoo dhan waa naga hooseeyaano ilaahay ha u naxariiste cabdirasaaq maxamuud abubakar la oran jiray isagaa wakiilka golaha sare ee jiljiga ahaa laakiin hade markaas waxaa toogashadu dhacaysa iyo waxaas nalama u joogin arrin ciidan bay iska ahayd isagu markaa politician camal buu u joogay ahaan siyaasad ahaan buu u joogay. arrinta ku saabsan waa laydin dallacsiinayaaye sargaalka askarta idinku wanaagsan soo saara arrintaas hadalkaasoo kale waxa igu yidhi ninka la yidhaahdo generaal galaal waxaad leedahay ma jirin arrintaasi? anigu waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan. galaal markaas iyada waktigaasna ciidanka waaba ka wareegayo isagoo awalna markii hore dirir dhabu ahaayo wajhadan ma ahayn wuxuu ka dhibaatadu ka dhacday. markii dambena oo hawshaanu dhacaysana xamar buuba jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinayo wasiirka hawlaha guud inuu noqdo baaba loo diyaarinayo. marka arrintaas wax ka jiraa ma jiraan. aniga baanduulihii furuntigaas markaa ahaa ninka iiga sarreeyeena ciru ahaa. marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagana nagama bixin amarkaasu iyo furuntiga iyaga amarkaasu kama bixin namana soo marin. gaashaanla sare cabdi salaad cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo. aniga waxay ila tahay waxay iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aana ogeyn rabbi baa wax walba og anigu wax walba oge maahi laakiin intaan u warhayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay laakiin misana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynayo anigu u malaynmayo. sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldaraysto guuldarrada koowaad isagaa yeelanaya mas-uuliyadeedana isagaa qaadaya isagaana madax ka ahaa isagaana maxkamad lagu saari lahaa si raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho taasoo kaleu mudan lahaa. marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsanin inay sidaa tahay. ku-xigeenkiisiina waa lahaa haddaan duulihii meesha ayaan ahaa waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaleo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kala joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin fogogaalna u noqon karin. anigu intaasaan ka leeyahay. laakiinse gaashaanla sare maxamed ibraahim guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaar nasiib ah lagu soo xulay. nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebelaa ka dambeeye ma jiro. laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotage ciro iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen. samatar doonta oo fuuli duleelin maayo, maxamed siyaa doonta oo fuuli duleelin maayo. ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay saraakiishaana loo laayay. ninna mataqaanaa samatar u dhiibaa so maxamed siyaad u dhiibaya see mataqaanaa yani maarag annaga waxba maanan ogeyn iska dhaaf joobaniyaan iska een dhalinyare waxbaba aan la socon. laakiin nooy abyaamo beensahato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yidhi war say ku dhacday arrintaas sabotaaj bay ahayd. waxaan kusoo dul istaajiyey inta aniga sabotaaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in liiga mataqaana diyaaradii garaacda oo hub lii diidaay baabuurta liiga wadanayo. haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda soomaaliya ee xilligan joogtaa ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta soomaalida ah? sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu waraystay barnaamijkani waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn. waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaar nasiib ah loo soo xulay. haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah. haddaba ma tahay in dowladda soomaaliya ay eheladii dadkaasi raaligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayay duleedka garab case? gaashaanla sare guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi
waxaana isaga iyo gaashaanle sare daa'uud cabdullaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raaligelinba laga bixiyo. nacam, crime waa crime, dad la laay, macna dare loo laay, ciidan ahaa in lagu fushada dan lalahaa waan ayaga dembi gelin. waayo ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya, waa la kala tegayaa. saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaanaa yani maarag qalin awataya ku jiri dadkaan la laayay waa saysan dembi weyn. taana daliilkeeda harun waxaa ku 40 casho kadib cere waa la toogtay. 9 abriil oo dhacay mataqaanaa maxaan ku yidhahdaa inqilaab ayaa la sameeyey. isla markii waa duulay mataqaanaa ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan lis aaminaynin oo nin walba mataqaanaa yani maarag mas-uuliyadiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay. 9 abriil oo ku dhuftay sideeda kiyaaraskuisi waa yel waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay. marka in la magdhabo oo la xasuusto way mudan yihiin, aaday u mudan yihiin. magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yidhaahda dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiya harun waa mudan yihiin. dilka askartaasi waxaa daba socotay khaarajin loo geystay qaar ka mid ahaa saraakiishii sare ee ciidanka Soomaalida, waxaana ka mid ahaa saraakiisha la laayay Axmed Maxamed Canshuur oo ahaa taliye guuto, Muuse Muumin Meydal oo ahaa taliyihii ciidamada madaaficda goobta, iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Nuur Gurxan, Maxamed Soomaali, Cabdi Faarax Cali iyo Juuni. 9 bishii Maarso 1978 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii Soomaali galbeed. bil kadibna 9 bishii Abriil 1978 waxa afgambi dhicisoobe sameeyey saraakiil ay hogaaminayeen gaashaanle sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro iyo gaashaanle sare Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgambigaasi uu qorshaysnaa inuu dhaco 12 bishii Abriil oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, balse uu soo hormariyey gaashaanle sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro. kadib markii afgambigaasi uu dhicisoobay waxaa la qabtay 20 saraakiil ah kuwaasi oo markii dambena la khaarijiyey.